بسم الله الرحمن الرحيم marka lagu soo dhawaada barnaamijkeennii weydiinaya warcelin ee aad channelkan uga barateen xalqadiisii sagaalaad maanta waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo weydiin la soo weydiiyay jawaabteeda aan isleeyahay in badan oo idinkeena ka mid ah waa laga yaabaa inaad danaynaysaan weydiintu waxa weeye waxa haysata mushkilad ah wax kasta oo aan akhriyo waxyaabihi aan ka faa'iiday hadhow aan rabay inaan adeegsado ama dadka aan la wadaago ama aan naftayda dib u xasuusto si aan u dhaqan geliyo ma soo qaban karayo markaan u baahanahay macluumaadii aan meel ka aqriyay ama buugan ka aqriyay ama article aan ka aqriyay dib uma soo qaban karayo oo way ugu adagtahay inaan qabto marka maxaa arinta lagu qofku uga kori karaya ama uu waxyaabihi macluumaadkii uu akhriyay oo xasuustiisa kor ugu qaadi karaya waxaan jeclahay inaan muuqaalka marka idinku soo gudbiyo ilaa 5-6 meelaha tab ama hab oo inta badan culimadu ka hadlaan culimadan cognitive psychologists inta badan tilmaama culimada memory-ga wala qaybta qaabilsan ta koowaad waxa weeye in aad macluumadan inta hor inta aanad akhrin aad abuurto xiise ama maskaxdeenu sideedaba waxa ay maaragtay weelaysaa macluumaadka inoo muhiimka ah yani ilaa awoodiisa maskaxdeenu yani intaasoo macluumaad ayaa gala sida caloosheenuba dheefshiidku maaragtay wax kasta aan cunno u kala shiido oo wixii nafaqo oo jidhkeenu u galiyo hab la mid ah ayay leedahay maskaxduna oo macluumaad kasta aynu intaasoo macluumaad baynu maalinkii la kulanaa in badan oo unconsciously aynu ogeyn baa jirta maskaxdeenu qaadato waxaasoo dhan maskaxdu way kala shaandhaysaa oo habeenkii qofku marka uu seexdo oo kale waxyaabaha hurdadu ay qabato waxa ka mid ah qofku maskaxdiisa macluumaadkii uu akhriyo oo dhan ama uu maanta maqlay ama indhihiisa xawaasiisa shanta ay maskaxdiisa u gudbiyeen way kala shaandhaysaa wixii aan muhiim u ahay qofka way ka tuurtaa marka waxaan uga jeedaa macluumadan ka hor inta aad akhriyo dad buug akhriyaysid hadaad muuqaal dhageysanaysid hadaad article akhriyaysid macluumadan marka horeba aad doonaysa muhiimadda ay ku leedahay inaad dareensan tahay muhiimadda waa jira interest wixii interest maskaxda u leh qofka u leh ayay maskaxduna weelaysaa dareen waa inuu jiro marka isku day inaad raadisid macluumadan aad doonaysa inaad xifdiday macnaha ku leh wax ku faa'iideynaysa hadhow aad doonaysa inaad dib u xasuusto marka aad akhriyayso create some sort of fascination ama inaad xiise bal ka dhex abuur oo macluumadan istus maxay ku taraysaa maxay qiimo ku leedahay maxay hadhow ka anfacaysaa sidee u adeegsan doontaa maxay kugu soo kordhinaysaa marka arinta aad abuurto dareenka interesting ama xiisaha aad abuurto ay ku leedahay deetana waxa fududaan karaysa maskaxda inay qaybta marka information-ka aad qaadato in si toos ah u gasho qaybta xasuusta fogay maskaxdeena arinta labaad waxa weeye waa repetition waa ku celcelin macluumadan aad soo qaadatay ee aad doonayso inaad xasuusato hadhow waxaad u baahan tahay in aad ku celceliso waliba daraasaadku siday tilmaamayaan dhawaan sidii buugyaan kula wadaagay how we learn xalqadii fikradii buug space repetition wax la yiraahdo space repetition waxa weeye hal mar un baa laga yaabaa qofku intuu fariisto uu macluumaad intuu qaato ku celceliyo wixii uu rabay inuu xifdiyo haday aayada quraan tahay haday axaadiis tahay haday cashar iskuul laga rabay uu yahay haday gabay uu rabay inuu xifdiyo ay tahay haday wax kasta qofku uu doonayo inuu xifdiyo dadku inta badan waxay sameeyaan hal waqti bay juhdi wada galiyaan wixii way isku dayaan inay xifdiyaan marka ay xifdiyaan baa mar inta badan mar qaarkood ugu dambaysa laakiin daraasaadku waxay tilmaamayaan wax la yiraahdo space repetition baa ugu fiican sida ugu fudud macluumadan ama wax la doonayso inaad xifdiso ay xasuusta dhow uga tagi karayso xasuusta fog u tagi karayso waxa weeye inaad sameyso space repetition waxa weeye macluumadan maanta aad akhriyaysaa ilaa heer aad isku daydo inaad xifdido dadna waxa jira wax la yiraahdo faa'iidada ilowga faa'iido leeyahay marka uu macluumadan maanta aad xifdisay 6 casho kadib waxa la yiraahdaa istimid ilaa 6 casho marka qofku gaadho waxa soo dhaca decline baa waxa ku yimaada hoos u dhac baa waxa ku yimaada xifdigii uu hayay macluumada ama intii xifdiskiisa intuu gaarsiisnaa macluumada decline baa ku yimaada hoos u dhac baa ku yimaada 6 casho ka bilaabanta hoos u dhaca markuu sidaa u soo dhaco ayaa la rabaa mar labaad in haddana aad macluumada aad xifdiso haddana 20 cisho kadib ayaa la rabaa macluumada inaad isku imtixaantid oo deetana dib haddana u xifdisid bil ta ku xigtana waxa weeye
ilaa 6 bilood 6 bilood shanta ilaa 6 waqti marka koowaad baad xifdiyeysaa marka 6 casho kadib baad isku imtixaamaysaa dib baad u xifdiyeysaa wixii ka dhinaa 20 cisho kadib 30 cisho kadib haddana 6 bilood kadib macluumada waxay noqonaysaa sida inay abadiyo oo kale maskaxdaadu way ku weeleysmaysaa kaydka maskaxda waxay gelaysaa memory-ga ay gelaysaa marka space repetition aad bay iyadana muhiim u tahay arinta saddexaad iyadana qofka xasuustiisa macluumadu aqriyo kor u qaadi karaysa waxa weeye in uu cid la wadaago waxa aad doonayso inaad xifdido ama waxa aad doonayso inaad fahanto cid la wadaag isku day inaad fikradan aad maanta soo baratay ama aad doonayso inaad xifdiso wadadaad u xifdinaysa mid kamid ah noqoto inaad dadka u sheegto inaad cid ku dul aqriso kolay noqotaba kaliya haddaad tahay inaad muraayadaad hor istaagto aad sharaxdo fikradii conceptkii ama aragtidii aad doonayso inaad xifdido ama aad fahanto inaad sharaxdo ninkii la odhan jiray Einstein baa wuxuu odhan jiray yani fikradda aad cid ka dhaadhicin kari laadahay haddaad fikrad adigu aad cid ka dhaadhicin kari laadahay macnaheedu waxa weeye adaan marka hore fahansanayn marka waxay kugu qasbaysaa inaad marka hore fahanto si aad cid uga dhaadhiciso dadna juudiga daraaddeed ba waxay keenaysaa in faa'iidana aad ka hesho inaad wixii macluumaad si gundheerna aad u dhex gasho oo fahanto xasuustaada fogna ay gasho Feynman technique baa jira in la oran jiray Feynman magaciisa hore iga maqan yahay oo physicist inuu haaban jeclahay physics aad buu caan uga ahaa macallin waa professorna waa jaamacadda Mareykanka wax ka dhiga technique aad baa loo isticmaalaa waxa weeye waa inaad cid u sharaxdo waxaan aad doonayso inaad xifdiso waxaan aad doonayso adigu laftarkaaga inaad fahanto waa inaad isku day kartaa inaad u sharaxdo waa the best way markaad cid wax u sharaxdo waxaad ogaan karaysaa inay fikradaada gudubtay haddaanay gudbin waxaad dib aad isugu laabanaya adigiiba waxyaabo badan waxa ku soo baxaya ka hor marka intaadan cid la wadaagin adigu waxa ka dhacsan inaad waxan taqaano ama aad fahansan tahay laakiin marka tiraada cid u sharax baad ogaanaysaa inaad wax badan laftarkaaga aad ka fahansan marka the best way waxa weeye inaad cid u sharaxdo Einstein mar labaad wuxuu oran jiray fikradaada isku day inaad ka dhaadhicin karayso ilmo yar yani big complex kasta tahay mushkiladu si kastoo u adag tahay faraaleedu isugu dhafan yihiin haddii aanad ilmo yar ka dhaadhicin karaynin yani aad bay u adkaanaysaa adigu laftirkaaga inaad fahantid marka the best way aad ku fahmi karaysid wax ama xasuusaad ku gaarsiin karaysid waxa weeye inaad cid la wadaagto anigu habkan aan muqaaladan buugta fikradii buug kale faa'iidooyinka anigu iga soo gala marka laga tago dadkan wax u faa'iideynayo waxa kamid ah arintaas yani waa way of inaan anigu macluumaadkii anigu cid u sharaxo oo isku dayo inaan cid u sharaxo si aan anigu laftirkayga si fiican ugu fahmo ama marka hore aan attention u siiyo inaan macluumadan si gundheeran aan u sii fahmo si aan idinkuna idin la wadaago marka waxay ugu qasbaysan in idin la wadaago waxay ugu qasbaysan wax si dhib aan u fahmo macluumada iyada marka arin aad muhiim ah oo runtii aad adeegsan karayso